Maxay Soomaalidu u taqaanaa romantic? Waxay u taqaanaa romantic in la muujiyo jacaylka ay isku qabaan lamaanayaasha, tusaale ahaan inay isku qoraan ereyo ammaan ah ama ay isguddoonsiiyaan hadiyado dadka oo dhan ay arki karaan, iyo inay si wadajir ah bannaanada uga soo caweeyaan. Intaa markay ay sameeyaan, waxaa loo qiraa inay yihiin lamaanaha maanta. Way sheegaan, ammaan ayayna ugu daraan, waxayna sawiradooda u isticmaalaan baraha bulshada iyagoo u arka astaan jacayl. Inta badan ma oga noloshooda gudaha sida ay tahay, laakiin romantic-ka Soomaalida maanta waa jilin uun keliya, umana hayaan dulqaad nolosha guriga. Tusaale ahaan, imise romantic ayaad baraha bulshada ku aragtay iyaga oo jilaya romantic? Waxaa jirtay gabar Soomaaliyeed oo joogta Mareykanka, waxay Facebook-keeda soo dhigtay iyada iyo ninkeeda oo jacayl jilaya. Xilligaa waxay shirka ka saarneyd gaari uu ninkeeda wado, waxaana u daarneyd hees jacayl ah oo dabacsan. Waxaa loo arkayay lamaanayaal isku faraxsan, laakiin nasiib xumo, ugu dambeyn ninkii ay romantic-ka la jilaysay ayaa dilay oo nafta dhaafiyay. 2. Mursal Muuse iyo Khadra Saliim waxay ahaayeen lamaane Soomaaliyeed oo haddana carruur isku dhalay. Haddana waxay ka mid ahaayeen jilayaasha romantic-ka Soomaalida. Dhalinyaro badan oo ku dhaqan Hargeysa waxay u arkayeen kuwo ku dayasho mudan, laakiin Mursal Muuse ayaa ugu dambeyntii jacaylkii romantic-ka iyo carruurtii ka doorbiday inuu dibadda aado. Sidaa ayuuna ku soo gabagabeeyey jiliinkii romantic-ka, wayna kala tageen ugu dambeyn oo waxa uu guursaday xaas kale. Qamar Suugaani iyo Ugbaad Aragsan waxay ahaayeen lamaane dhowaan aqal galay. Waxay soo bandhigeen jiliin macaan oo romantic ah. Waxaa jirtay hees jacayl oo kalsooni badan ay ka muuqato oo ay jacaylkeeda u qaaday Ugbaad Aragsan. dugsidhaba haddaanahay adna deerkibaatahay haddaan duuya ku ahay adna dunidii baa tahay daymadii haddaanahay adna dareenkii baa tahay daymadii haddaanahay ama dareenkii baa tahay. Bilooyin kadib waxaa durbaba soo ibaxday inay kala tageen, mid walba bartiisa gaarka ayuu soo dhigay aqalgalkiisa. Waana tilaabo kale oo ku cadaynaysa romantic-ka Soomaalidu inay tahay jilin uun keliya. Haddaba waa maxay romantic? Romantic-ku waa kalsooni isisiinta lamaanayaasha iyo mid walba midka kale inuu dareemi karo dhibkiisa, wax wada qabsi iyo inay leeyihiin hal hami oo nolosha ku aadan.